kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka Kismaayo Cable ugu door karoon qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Sheekh Shakir iyo ilaaladiisa oo Cawa lagu rasaasay dhuusam reeb iyo xiisad ka dhalatay arintaasi booliska Soomaaliya oo Kenya u gacan galiyay laba qof oo ay raadinaysay madaxweyne farmaajo oo Soomaaliya ku casuumay madaxda ka qayb galaysa shirka Ruushka Jabuti iyo Soomaaliya oo shir degdeg ah ku baaqay xilli khilaafka IGAD uu sii xoogaystay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka Kismaayo Cable daawadayaal haatan u diyaar garooba qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa goordhow rasaasayay madaxa xukuumadda Galmudug Shakir Maxamed Cali Xasan Shakir ayaa xilliga la rasaasayay ku sugnaa afaafka hore ee madaxtooyada Galmudug oo haatan uu ku shaqeeyo xarunta madaxtooyada Galmudug ayaa waxa degan hoggaanka sare ee ahlu sunna wal jamaa qaar kamid ah saraakiisha ahlu sunna gudigii doorashada Galmudug ee uu magacaabay Shakir iyo xubno kale oo siyaasad ahaan taabacsan ahlu sunna Shakir ayaa xilliga la rasaasayay waxa uu taagnaa goob banaanka ka ah xarunta ee uu ku shaqeeyo halkaasi oo uu ka socday dhismaha difaac ay galaan ciidamada ilaalinaya xarunta uu degan yahay Sheekh Shakir ilaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay rasaastaasi Cawa ciidamada dawladda ku fureen madaxa xukuumadda Galmudug walina ma jirta labada dhinac cid ka hadashay arintaasi waxaana heegan la geliyay dhammaan ciidamada ka amar qaata hoggaanka sare ahlu sunna kuwaasi oo ku kala sugan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Galgudug waxaana Cawa kacsan xaaladda magaalada Dhuusamareeb iyadoo ahlu sunna ay ciidamo ku daabulayso xarumaha madaxtooyada iyo waliba dawladda hoose ee magaalada booliska Soomaaliya ayaa laba qof oo la rumaysan yahay in ay xubno ka yihiin al-shabaab u gacan galiyay mas'uuliyiinta dalka Kenya waxa sidaasi qoray wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya labada qof oo la rumaysan yahay inay Soomaaliya u baxsadeen kadib markii ay dambiye ka geysteen Kenya ayaa loo soo gacan galiyay shalay sida uu sheegay taliyaha booliska Kenya ee waqooyi bari warbixinta booliska ayaa lagu sheegay in labada qof la soo gacan galiyay qiyaasi 12 subaxnimo ee Arbacadii kadibna loo qaaday magaalada Garissa si halkaasi su'aalo loogu weydiiyo taliyaha booliska ee waqooyi bari Paul Soy ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in labada qof la helay ayaga oo wata hub kuwaasi oo laga wareegay ma uusan shaacinin magacyada labada qof wali waxa socda baaritaano dib ayaan warbaahinta kala hadli doona ayuu yiri booliska Kenya ma aysan shaacin halka Soomaaliya ka tirsan ee labada qof laga soo qabtay iyo habka lagu soo wareejiyay dawladda iyo booliska Soomaaliya wali kama aysan hadin dhacdada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika ayaa soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo waliba maalgashi haatan horyaala labada dhinac madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo uu sheegay in uu yahay mid labada dhinac faa'iido u leh isagoo uu xusay tiirarka ay tahay in uu ku saleysnaado xiriir kasta oo iskaashi oo qaaradda Afrika ay la yeelanayso dalalka caalamka shirweynahani waa fursad dhab ah oo dib loogu eegi karo laguna sii horumarin karo cilaaqaadka taariikhiga ah ee Afrika ay la leedahay Ruushka iyadoo loo marayo iskaashi iyo waliba wada shaqayn si loo gaaro horumar iyo barwaaqo loo dhan yahay madaxweynaha ayaa dul istaagay xiriirka taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Ruushka mashaariicdii iskaashi iyo waliba maalgashi ee laba geesoodka ah iyo waliba sida ay uga go'an tahay dawladda federaalka Soomaaliya dib u soo nooleynta xiriirkaasi Soomaaliya waxay doonaysaa in ay xoojisa xiriirka laba geesoodka ee ay la leedahay Ruushka iyo waliba in ay la shaqayso midowga Afrika si loo hubiyo in guul laga soo hoyo xiriirka labadeena dhinac ee la xiriir dhammaan dhinacyada kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay madaxda ka soo qayb gashay madashan iyo waliba maalgashadayaasha caalamiga ee goobta joogay in ay soo booqdaan Soomaaliya si ay u soo arkaan horumarka ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ayna u soo qiimeeyaan fursadaha maalgashi iyo waliba khayraadka uu alla ku manaystay dalkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uga mahad celiyay dhigiisa dalka Ruushka mudane Vladimir Putin xukuumadda iyo guud ahaan shacabka dalkaasi soo dhaweynta diiran iyo waliba martiqaadka sare ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdigiisa ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso qodobada wax ku oolka ah ee ka soo baxay madashaasi
sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo diblomaasiyadeed dowladaha Soomaaliya iyo Jabuti ayaa kulan degdeg ah isugu yeeraya xubnaha urur goboleedka IGAD dowladaha Soomaaliya iyo Jabuti ayaa doonaya in kulankan degdeg ah uu dhaco ka hor inta aan lagu dhawaaqin cidda noqonaysa gudoomiyaha urur goboleedka IGAD waxaa jira khilaaf xoog leh oo ka taagan cidda qabanaysa xilalka habsami u socodka hawlaha urur goboleedka IGAD waxaana isku saf noqday dowladaha Itoobiya iyo Kenya halka Soomaaliya iyo Jabuti ay isku dhinac noqdeen dowladahan ayaa si gaar ah isugu haysta cidda qabanaysa gudoomiyaha guud ee urur goboleedka IGAD iyo xogayaha fulinta oo hadda loo magacaabay warkana gabayaahu oo u dhashay dalka Itoobiya Soomaaliya ayaa doonaysa inay hesho xilka xogayaha fulinta IGAD oo shalay loo magacaabay warkana gabayaahu oo Itoobiyaan ah halka dowladda Jabuti ay rabto inay hesho xilka gudoomiyaha ururkan xilka gudoomiyaha urur goboleedka IGAD ayaa la filayaa in la siiyo Kenya sida ay u badan tahay waana mid ay sida weyn uga soo horjeedaan dowladaha Soomaaliya iyo Jabuti oo hadda raba in uu qabsamo kulan degdeg ah oo arintaasi looga hortagay dowladaha Itoobiya iyo Kenya ayaa si xirfadaysan u hirgelinaya qorshaha ay damacsan yihiin mana jirto ilaa iyo hadda dowlad si rasmi ah uga hadashay khilaafka xoogan ee ka dhex jira ururkan xubnaha ururkan ku jira lama ogo inay aqbali doonaan kulanka ay dalbadeen Soomaaliya iyo Jabuti haatana daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aan idinka hana dibadbaxayaal caraysan oo Itoobiya ku gubay buug uu qoray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dibadbaxayaal isu soo bax ka dhigay bariga dalka Itoobiya ayaa waxa ay gubeen buug cusub oo uu dhawaan qoray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed taasi oo ay taageero ugu muujinayaan Jawaar Maxamed ayaa sheegay in dawladda ay ka ceshatay ciidamadii ilaalinaya gurigiisa oo ku yaala caasimadda balse waxa arintaasi beeniyay saraakiisha dalkaasi arintan ayaa waxa ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay afaafka hore ee guriga uu ka degan yahay caasimadda Jawaar Maxamed iyo qaybo kamid ah dalka Itoobiya inkastoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed lagu amaanay isbedelada uu dalkaasi ka hirgeliyay ayaa haddana waxa uu la dala dhacaya xal u helidda isku dhacya u dhaxeeya qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya booliska Itoobiya ayaa waxa ay beeniyeen in Jawaar Maxamed lagala noqday ciidamadii ilaalinayay balse hadalka ka soo yeeray Mr Jawaar ayaa waxa uu jahawareer ku riday dowladda Itoobiya caasimadda Addis Ababa ayaa taageerayaashiisa waxa ay ballan qaadeen in iyaga ay ammaankiisa sugayaan waxaana la maqlayay dibadbaxayaasha oo ku dhawaaqaya Abiy hadhaco gubidda buugga ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka dhacday magaalada Dhadhaar ee dalka Itoobiya nuqulada buugga Mr Abiy ee lagu magacaabo Madhemer oo la daabacay Sabtidii ayaa laga qaybiyay dalkaasi buugga ayaa waxa qoraaladiisa diiradda lagu saaray fikrada siyaasadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo sidoo kale halka uu higsanayo inuu Itoobiya gaarsiiyo Jawaar Maxamed ayaa warbaahinta Oromia Media Network u isticmaalay dibadbaxyadii dawladda looga soo horjeeday sanadkii 2016 ilaa 2018 xilligaasi oo uu dalka ra'iisul wasaare ka ahaa Haile Mariam Desalegn waqtigaasi ayaa warbaahinta Oromia Media Network waxay heshay taageerayaal badan oo ay kamid yihiin kuwa qowmiyadda Oromada oo ah kuwa ugu tirada badan ee dalka Itoobiya oo iyagu dareemay in dhaqaale ahaan iyo waliba siyaasad ahaanba la gacan bidixeeyay xilligaasi saxafigan reer Itoobiya ayaa wuxuu ku sugnaa Mareykanka oo uu haysto dhalashadiisa balse Itoobiya ayuu dib ugu soo laabtay kadib markii Mr Abiy uu awoodda la wareegay bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay halkaas oo isbedel uu ka bilaabay caalamkana daawadaya qodobadan idinka hayno waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in la qaaday dhammaan cunaqabatayntii la saaray dowladda Turkiga kadib weerarkii ay ku qaadeen waqooyi bari dalka Syria go'aanka Trump ayaa imanaya kadib markii Turkiga uu ogolaaday inuu xabad joojinta waqooyiga Syria sii wadayo isaga oo ka hadlayay magaalada Washington ayuu sheegay Mr Trump in dawladda Turkiga ay u ballan qaaday inay joojinayso hawlgallada ay ka wado waqooyiga Syria waxa uu yiri aroortii hore ee saaka dawladda Turkiga waxa ay maamulkayga u sheegeen in ay joojinayaan gulufkii ay ka wadaan Syria ayna heshiiska xabad joojinta ka dhigayaan mid toos ah marka sidaa daraadad waxaan la hadlay xogayaha maaliyadda waxaan u sheegay in Turkiga laga qaado dhammaan cunaqabataynadii la saaray 14 bishan October ayuu intaasi si raaciyay cunaqabataynada waa la qaaday marka ilaa aan ka aragno waxyaabo aan ku faraxsanayn oo gobolkaasi ka dhaca ma jiri doono cunaqabatayna kale sidaasi waxa hadalkiisa ku sheegay madaxweynaha Mareykanka sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay gaareen Turkiga iyo waliba Ruushka